مسؤولينta dawladda hoose ee degmada Berbera oo ay horkacayaan maayir ku-xigeenka dawladda hoose ee degmada iyo xoghayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera raxan kamid ah ciidanka booliska degmada Berbera ayaa maanta magaalada Berbera ka bilaabay olole lagu burburinayo dhismayaasha suuqa magaalada Berbera kuwaas oo ay ku barakaceen kumanaan kun oo danyar ah isla markaana nolol maalmeedkooda kala soo bixi jiray meheradaha yaryar ee uga furnaan jiray gudaha magaalada Berbera mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Berbera sida maayir ku-xigeenka dawladda hoose ee degmada Baasha Cabdullaahi Yaaqoob iyo xoghayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera oo ka warbixiyay ololahan ayaa sheegay in ololahan yahay mid lagu hagaajinayo isla markaana lagu qurxinayo bilicda magaalada Berbera ballanana ku qaadayna bilicda magaalada sidii golaha deegaanka golaha deegaanka waxaanu halkan aad uga mahadnaqaynaa ciidanka booliska oo gacan xoogna lagu siiyay iyo dadweynaha magaalada oo laftooda caawiyay sidii magaalada bilicdeeda dib loogu soo saari lahaa ololahan waxaan ugu talagalnay soo nooleynta bilicda magaalada iyo in laamiyada iyo faras magaalaha laga buuxiyo dhismayaasha iyo cooshadaha iyo kabadhada bilaa sharciga ah kuwaas oo waxyeelaya bilicda magaalada dhinaca kalena dadka laga burburiyay meheradahan oo aanu dareenkooda wax ka weydiinay ayaa noo sheegay in meheradahani ay ka heli jireen quuta daruurigooda isla markaana ay haweenka qaar meheradahani lahaa ay ku quudin jireen carruur agoon ah iskuuladana kaga bixin jireen sidoo kalena waxay dadkani qaar ka mid ah ay noo sheegeen inaanay haysan meel hoy u ah isla markaana hoy iyo hantina ay lahaayeen meheradahaasi maanta laga burburiyey haddaanu maatina 15 carruur aan ku korin jirno dad baahan baanu dad maatiya baanu carruur yar baanu haysana leetusna lama siin waxa ay sidaan faqishnahay baa saacadna lagu soo kalahay waana la feelfeeli gurmur wanaanood iyo godadkii baas la geyn jiray xashiishka la geyn jiray lagu soo gubay waxa iyagii oo dhan si kastaba ha ahaatee ololahan ay dawladda hoose ee degmada Berberi ay doonayso inay ku hagaajiso bilicda magaalada Berbera ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona dadkii danyarta ah ee meheradahaasi ka ganacsan jiray waxaana dawladda hoose ee degmada Berberi ay ilaa haatan wax jawaab ah ka bixin dadkii ay ka burburisay meheradahani halka ay dejin doonto Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Berbera.